waxaa maanta magaalada Boorama lagu qabtay shir lagaga hadlayay sidii bulshada Boorama loogu baraarujin lahaa aafada iyo dhibaatada uu gudniinku u leeyahay caafimaadka hablaha iyo haweenka. shirkani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyo sidoo kale hay'adda GIZ ayaa waxaa ka qayb galay haweenweynaha kala duwan ee magaalada Boorama, ururada bulshada iyo daneeyayaasha dabarjarka gudniinka. shirkani muddada uu socdo waxaa lagu lafaguri doonaa sidii loo heli lahaa shuruuc xakameynaya aafada gudniinka oo muddo dheer soo jiray. furitaankii shirkanna waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, isku duwaha wasaaraddaasi, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, maamulka gobolka iyo kan degmada Boorama iyo mas'uuliyiin kale. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Xasan Awaadan iyo sidoo kale isku duwaha wasaaraddaasi ee gobolka Awdal Farduusa Sheekh Siciid. marka hore waan idinka mahad celinaa sida quruxda badan leh ee madaxda heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan xubnihii gobolka ugu muhiimsanaa ay halkani ay nagala soo qayb galeen furitaanka shirka gudniinka oo maanta si rasmi ah uga furi doono magaalada Boorama. shirkan wuxuu socon doonaa 2 cisho. waa noo farxad inaan la soo doono inaan shirkan ka bilowno gobolka Awdal magaalada Boorama. shirkan oo ay ka soo qayb galeen ama ay goobjoog ka yihiin dhammaan intii ay khuseysay arrimaha bulshada ka shaqeynayay oo ugu muhiimsan yihiin hay'adihii localka maxalliga ahaa iyo wasaaradii iyo haweenkii ka shaqeynayay arrimaha bulshada. waxaa lagu lafaguri doonaa ujeedadiisu ahaan doonaa in lagu baraarujiyo bulshada reer Boorama aafada ay leeyihiin gudniinku. runtii haddii aanan la baran aafada ay leedahay kama wada shaqeyn karno. marka idinkuna maadaama aad dadkii bulshada wax gaarsiinayay inaynu ka wada shaqeyno oo muddada aad halkan joogtiin aad uga faa'iidaysatiin aafada uu leeyahay gudniinku. shirkan waxaa soo qaban qaabiyay oo ka soo wada shaqeeyay hay'adda GIZ iyo wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. shirkan waxaa noo qorshaysan inaan gobolada dalka oo dhan aan ku soo qabanno. waxaan ka qaybgalayaashu intuu shirku socdo lagu lafaguri doonaa sidii loo heli lahaa shuruuc iyo siyaasado xakameeya gudniinka. wasaaraddu waxay wadaa siyaasadii gudniinka oo loo bedeli doono xeerkii gudniinka. marka intaasi waxaan rajaynaynaa in FGM conference-kani uu ka soo baxo talooyin ku aadan diyaarinta siyaasaddaasi. shirkan ugu dambeyn shirka waxaa laga soo saari doonaa warmutiyeed koobsanaya arrimihii laga wada hadlay intuu shirku socday, iyadoo la adres gareynayo dadka u faradhuudhuuban ee ka shaqeeya arrimahan sida wasaaradaha mandate-ka u leh iyo dadka civil society-ga, gudiyada xaafadaha, dhammaanba dadka caafimaadka ka shaqeeya, waxbarashada, inta halkan fadhidaba. sidaa darteed ayaan maanta halkan ugu fadhinaana inaynu qabanno shirweynaha. barasaabka gobolka Awdal iyo maayirka degmada Boorama oo shirkan soo dhaweeyay ayaa yiri arrinkan waxa weeyaan arrin aynu ognahay oo jira oo aan indhaha laga qarsan karin, dhibaatadiisa caafimaad iyo dhibaatada uu leeyahayna la wada og yahay. waxaan rajaynayaa muddada 2 cisho ee joogtaan in maadaama gobolada oo dhan la marayo aynu ku darsanno in bidkuusa si ay u noqoto siyaasad guud oo qaran oo hagta wixii laga yeelayo iyo wixii cawaaqib ka dhalanaya iyo waxyaabaha caqabadaha ee jira iyo sida looga baxayo. waxaan ka qabnaa arrimahaasi inta ay diintu ka qabto. waayo inaga marjiceena ugu weyn waxa weeyaan waa diinta islaamka. wax kastana marka aan doonayno in siyaasad la soo saaro waa in siyaasaddaasi aanay marnaba ka hor imanin shuruucda dalka u taalo ugu sareeyo dastuurka qaranku. waxaan rajaynayaa oo sharaf ii ah in degmada Boorama marti gelisay muddooyinkan dambe kulamo fara badan. wasaaradduna maadaama ay go'aansatay inay ku qabato halkan oo ay ku horeysiiso la jecel gaar ah oo tahay dhibaato wuxuu leeyahay idinka nooga waroon hadduu wax tariyeelay idinka nooga waroon. waxa la idinka rabaa markaa fikirkiina oo aan diinta islaamka ka horimaynayno oo saliima wixii lagu hagi lahaa taasoo noqonaya inay idinku keentaan. idinka la idinka rabaa bal waxa dhibaato inoo leeyahay iyo inoo wanaagsan. culimadiina waxa laga rabaa waxa diintu way ogoshayo ma ogoliyo waxa ogoshana waxa laga rabaa qodan culimadayno ah. markaanu inta ay sugayno aynu dhaqankeena wax ka darsanno xishoodka lahaa ayaa siyaasadda waxaan lagu hagaayno soo saar karayna.
ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Cabdimajiid Ibraahim Muumin oo furay shirka ayaa waxa uu yiri barnaamijkani ku saabsan aafada gudniinka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo haweenkeena si xal waara loogu helo waxaa looga baahan yahay dhammaan intiina halkaa joogtaa inaad keentaan talooyin wax ku ool ah isla markaana xal u noqon kara dhibaatada uu leeyahay gudniinka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoysuleynta badan waxa ay dhiirigelinaysaa isla markaana ay qadarin iyo qiimo siinaysaa haweenkeena aad baad u mahadsantihiin tababarkuna loo furan yahay waa Cabdilaahi Daahir waa TV-ga caalamiga SAB magaalada Boorama.